kulamada Liverpool ka hor istaagi kara inay ku guuleystaan horyaalka Premier League oo la shaaciyay hadda waa kuwa kulamadaasi iyo kooxaha ay la ciyaari doonaan Arsenal, Chelsea mise Manchester City. Muuqaalkan ayaa ku wadaagi doona ay soo dhaw daawade balse marka hore waxa ka codsanaya inaad like saarto muuqaalka si share kareyso sidoo kale aad ku soo biirto bogeyga Saamil Cadaala haddii aad igala socdo bartay TikTok waxaan ka codsanayaa inaad dirista jir ay daawado calaamada goob linki aad iyo aad ayaad u maasan tahay aniguna waxaan ahay Saamil Cadaala hagaag haliyayga kooxda kubadda cagta Arsenal Martin O'Connor ayaa sheegay in Liverpool ay lumin karto fursadaha ku guuleysiga horyaalka Premier League ciyaareedkan markay ciyaarayaan kulamo adag oo ka dhici doona meel ka baxsan garoonkooda inkastoo Martin O'Connor uu qiray in kooxda Arne Slot ay wali yihiin kuwa ugu cadcad inay ku guuleystaan horyaalka Premier League inay qaadaan inkastoo Martin O'Connor uu qiray in kooxda Arne Slot ay wali yihiin kuwa ugu cadcad inay qaadaan horyaalka haddana waxa uu rumaysan yahay in Arsenal ay wali haysato fursad ay ku guuleysan karto horyaalka Premier League Liverpool ayaa hoggaanka u haysa horyaalka Premier League iyadoo 6 dhibcood ka sareysan naadiga Arsenal waxaana ay wali haystaan hal kulan oo baaqi ah kooxda Reds ayaa sidoo kale galiya hal kulan laga badiyay 28 kulan oo ay ciyaareen tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan Martin O'Connor oo hore u sheegay inuusan u arkin Arsenal in ay Liverpool ka guuleysan karto horyaalka xilli ciyaareedkan ayaa hadda markii uu si dhow u eegay jadwalka kulamada Liverpool sheegay inay rajo leedahay kooxda Arsenal ee hogaamiye Mikel Arteta waxaa jira kulamo badan oo ay tahay in Liverpool ay badiso si ay ugu guuleystaan horyaalka ayuu Martin O'Connor u sheegay Talksport marka la eego qaybta hore ee xilli ciyaareedka waxay u muuqataa kuwa si sahlan ku qaadi kara horyaalka laakiin waa inay tagaan garoomo adag sida Arsenal ku dhacday kulankii Brighton waxay xagaagii hore ku kharash gareeyeen 200 milyan suuqa mana sahlana in halkaasi lagu badiyo Liverpool hadda waxay ku jirtaa ciyaarada wanaagsan inkastoo kulankii Manchester ay soo bandhigtay ciyaar liidata taasina waxay dhaawici kartaa kalsoonidooda dabcan wali waa kuwa ugu cadcad inay ku guuleystaan horyaalka laakiin wali waxaa haray waqti dheer 19 kulan ayaana ka harsan horyaalka Premier League waxay u safri doonaan Manchester City, Aston Villa iyo Bournemouth oo ah koox adag taasoo ka soo badisay Manchester City, Tottenham iyo Arsenal waxay la ciyaarayaan Nottingham Forest oo ah kooxda kaliya ee ciyaareedkan ka badisay Liverpool gurigooda waxay u safri doonaan Fulham iyo Chelsea waa kulamo adag oo Arsenal ay hore u ciyaartay qaybta labaad ee ciyaareedka waxay ciyaari doonaan kulamo badan oo adag waxa ay rabaan inay horyaalka ku guuleystaan kahor inta aysan Arsenal soo gaarin dhamaadka ciyaareedka ayuu hadalkiisii dhaacay haliga kooxda Arsenal Martin O'Connor haddaba adiga ahaan sidee u aragtaa hadal ka soo yeeray haliyayga kooxda Arsenal Martin O'Connor ah in Liverpool ay lumin karto horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ciyaareedkan markay la ciyaareyso kooxaha Manchester City, Aston Villa, Bournemouth, Chelsea, Fulham iyo kooxaha kale oo ay aadayso garoonkooda aragtidaada waxay tahay qaybta hoose ee commentiga ugu reeb mahadsanid